أنا أحمد محمد حسن قدومي حريرك الصومالية باسكيلكا حريرك باسكيلكا صوماليا waxaa dhisay horta sidiisaba wadankii Talyaaniga waddankan gumaysanay ayaa sameeyay tartamadiisa waxay ka dhici jireen jiirada Muqdisho waxaa dhici jiray beledweyne Muqdisho waxaa dhacay marka Muqdisho afgooy Muqdisho saasa loo qaban jiray xiriirkan sidiisaba adduunyada wuxuu sidiisaba lagu arkay 1886 lagu arkay wadamada horumaray ayaa sameynayay laakiin inta waxaa keenay gumaystihii muddo dheer tartankaas wadanka Soomaaliya si caadi uga dhacay markii gumaystihii wadanka uu ka baxay kadib xiriirka waa dib u dhaca ku yimid marba todobaatameeyada la isku dayay haddana waa dib u sii dhacay dib waxaa loo aasaasay xiriirkan 2001 Agosto gudoomiye ugu horeeyay xiriirka wuxuu noqday ninkii tartamada birigaas oo ka qayb gali jiray kontomeeyadii Cabdullaahi Maxamed Cusmaan Kabiirow waxa Kabiirow bedelay Cabduqaadir Barrow waxa bedelay aniga xiriirkan wuxuu xubin ka yahay UCI-da wuxuu xubin ka yahay CAG oo Afrika ah iyo guddiga Olombikada qaranka Soomaaliya xiriirka Soomaaliyeed baaskiilka wuxuu qabtaa tartamo iyo seminaaro xiriirkan muddadii uu dhisnay wuxuu qabtay cycle cross iyo road cycle-ka iyo wuxuu qabtay seminaaro asoo internationalkan uu ka helay seminar caalami ah oo ku aadeen magaalada Addis Ababa xiriirku wuxuu si weyn uga shaqeeyaa horumarinta wadista baaskiilka dalka qodobka 12 ee xeerka xiriirka Soomaaliya baaskiilka wuxuu dhigayaa in xiriirka la gaarsiiyo dhammaan dalka daafiisa kala duwan xiriirku wuxuu muddo dheer u fadhiyay qalab la'aan dhibaatada ugu weyn xiriirkan soo martay qalabka xaqiisa ay ahayd hadda wuxuu helay qalab waa helay wuxuu helay tababaro helay wuxuu sameeyay hadda seminaaro qabtay gudaha iyo dibadda wuxuu ka gudbay hay'ad habci ku dhacay xiriirka muddooyin kala duwan ee soo maray waa uu ka baxay hadda wuxuu u gudbay inuu seminar dibadda qaato oo macallimiin uu helo inuu seminar gudaha uu galo inuu ka qayb galo shirarka caalamiga ee baaxay haday international uu qabanayo ama uu midka qaaradeed uu qabanayo UC-da waxaa ka diiwaan gashan 200 iyo 200 oo xiriir ah ka diiwaan gashan oo dawladood shirkiisa ugu dambeeyay hadda Zuma lagu qabto wuxuu ka dhacay Talyaaniga midkii ka horeeyay wuxuu ka dhacay London uu ka dhacay kii London waa ka qayb galnay marka xiriirka Soomaaliyeed ee baaskiilka muddadii uu jiray culays badan ahay hadda waxa muleynaysa inuu ka baxay wuxuu hadda uu gaaray inuu xiriirku uu tababaro aado inuu tababaro inuu macallimiin inuu garsoorayaal helo inuu wadayaal helo maxaa yeelay xiriirku haduusan macallin lahayn ma shaqeynayo hadduu garsoorayaal ma shaqeynayo maamulka kaligiis ma socon karo xiriirku marka wuxuu ka gudbay inuu waxay ahaaday uu mugdigi iyo wixii uu ku jiray hadda waa ka baxay hadda waxaan rajeynaynaa inaan u qabano marka dugsiyadii iyo jaamacadihii iyo gobolladii inaan seminaaro geeyno hadda waqtiga ugu horeeyo waxaan rabnaa inaan geeyno marka macallimiin inaan dirno maadaama xiriirku macallimiin uu yeesho hadda macallimiintu inuu faafiyo oo waddanka ku faafiyo si loo helo dad tayo leh oo wadayaal oo fiican si aan uga qayb galno tartamada maxaa yeelay xiriirkan sidiisaba waxaa waaye rank number lagu wada saacad waaye maahana iska soo bax kaala ka qayb gal ma aha xiriirku marka waxa waaye xiriirada oo lagu xisaabtamayo waa inuu aad keento score kaasad ku bixi kartaa wax uga qayb gali kartaa wax kale uga aad qayb gali kartaa marka xayade xiriirku hadda wuxuu rabaa wuxuu ka gudbay aqoon daradii wuxuu u gudbay aqoonta hadda wuxuu u taagan yahay xiriirku inuu horumariyo wadayaasha dalka maadaama dadku hadda xiriirka waxa wadayaasha ayagaaba kiriisanaya baaskiilkii intuu tagaan ay doonahayaan marka wuxuu baa dadka in wax la baro oo qaabka loo wadaayo nidaamka iyo sida loo tartamayo habka loo raacay in la baro marka xiriirka hadda waxaa waa macallimiintii waxaan rabnaa hadda 2021 xiriirka inuu horumar buuxo u gaaro oo ka baxo waxay ahaaday kaala soo raac baaskiilka iyo kaala maanta tartanaa jira iyo waxaas oo dhan inuu ka gudbo oo kooxiisa waa nidaamsiin inuu gobolladii iyo degmooyinkii iyo jaamacadihii iyo dugsiyadii oo hadda uu seminaaro siiyo sanadka ugu horeeya 2021 seminaarka la qabanayo dugsiyada marka xiriirku waxa waaye wax badan buu soo fadhiida u hay dhulku yilay hadda waa ka tagay waa kacay hadda bishaan hadda Maarso waxaan filaynay seminar kale in la aado
oo internationalka level 1 oo level 2 hadda ila mid kale halkan ka dhici raba jira asagana waa naga baaqday marka xiriirku hadda waxay ahaaday macallimiintiisa koow ay level koow jooga level 3 waxa lagu qaadanaya visa oo World Cycle Center lagu qaadanaya waa shahaadada ugu dambaysa laga qaato ninkaas wuxuu wax ka bixin karaya wadamada kale ee Afrika iyo adduunyada oo seminar ka bixin kara markuu helo